miiska siyaasadda way ku yar yihiin waxba ma qabsan karaan markaa adaa sidaa ka dhigayde markaa dad maanta heesto iyo berri haddaad heesto dadka loogu jecel yahay ilaa iyo weligood heesiye ilaa maanta heesa waa iyaga waxaasi waxa ma sheegayaan inta kale iyaduna aan ku arkayay social media waxa weeyaan oo dadku ay sheer garaynayaan ka falcelinayaan saalax sanaag oo hees qaaday tii hore waan iskaga aamusay hees tii hore reerka ama dhibaan ay soo qaateen iyagaa lahaa siyaabo kalena dadku uga falceliyeen sidii aan anigu doonayay oo kale ugamay falcelin dadku ama sidaan anigu isla way fiicnay nimanka la yiraahdo hindidu waxay leeyihiin caste system waxa la yiraahdo caste systemkaasi waxa ku dhisan yahay bay yiraahdaan darajada oo ilaahay kaga jirto marka lagu hayo waxaas qabiila ah oo xagga u hooseeya qabiilada ah shaqo lama siiyo يعني لما تابتو لو ما سو دواادو وانا دد عابده لو اما waa dad caabuda sanabaad ama diin kale oo iyagu leeyihiin caabuda laakiin muslima inagu hadaba muslina oo muslim sheeganayna ayaynu exactly the same thing ku dhaqmanaa exactly the same thing waxaan iyaga kaga duwanahay maanta ay sheegi karaan waayo waxa tiri lagama guursan karo nama guursan kartaan shaqada aan u arka anigu u xun inay tahay dadana u arka ayaan ku diranayaa wayar inta qof aan arkay iyagoo ka hadlaya ama wax positive sheegaya heesta ku daray laakiin heesta baad ku ciyaartay dabadeetana viral hit baad ka deedeysaa inuu ku socdo muuqaalku meel dheer ku gaadho dabadeedna waad isku duubaysaa tan saalax sanaag haddaan kusoo noqdo markaa ay dadku wada sheer garaynayaan social media meel walba waa dad goba waa dad Soomaaliyeed waa dad u baahan in la sameeyo waxa weeye waatan iminka halka haddaan ka baxo gurigayga aan halkaa maro ereyo qaar uma isticmaali karo dad hate crime wax la yiraahdo ka dhalan kara marka dadka xukuumadaha ka shaqeeya dadka sharciyada dejiya waa in khasab lagaga dhigo qofkii dadkaas ku xadgudba inuu leeyahay xarig haddaad eegtid xaafadda ay ka degan yihiin Hargeysa waxaan qortaa meelaha adduunka ugu quruxda badan dad doonaysa inaad isbedel keento ama aad doonaysa inaad reerka wax u qabato ama aad reerka wax la qabato waa in shuruuc laga soo saaro bulshada isdhex gasha dad kala guursada qolo waliba la qolo waliba waxa leedahay madax dhaqameed iyo qolo waliba waxa leedahay dad dil la dhex gala dadka Soomaaliyeed aan isu guurina hadii la yiraahdo dhalinyaro badan wax dhib uma arkaan waxyaabo la sameyn karo un bay kamid tahay bulshada la isku dhex galin karo